waan salaam dhamaan saaxiibada ku xiran channelka Bidaya Show aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigno fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysa channelkina soo booqanayso waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto haddii uu muuqaalku cajab galiyna sidoo kale like inoo saar soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog yar aan kaga hadli doono qaar kamid ah gabdhaha walaalaha ah ee Bollywoodka ka xamaasha ama atrishado walaala ah markay timaado nolosha dhabta ah haddana Bollywoodka kasoo wada muuqday ama aflaan Bollywoodka sameeyay ayaan rabaa xog ku saabsan inaan idinla wadaagay soo dhawaada saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal sheekadan atrishada ugu horeeyay ee taabanayso ama aan ku bilaabi doono waxa weeyaan atrishada lagu magacaabo Amrita Arora sidoo kale walaasheed Malika Arora Amrita Arora markaan ka bilaawno waa mid kamid ah gabdhihii soo caan baxay bilowgii 2000 aflaan badan ay ka soo muuqato laga xusi karo filimka caanka ah Awara Bagal Devana oo Akshay Kumar iyo sidoo kale hogaamiyaasha ka wada ahayn Sunil Shetty iyo Aftab iyo sidoo kale aflaamta kale ay ka soo muuqato waxa kamid ah filim lagu magacaabo Kam Bakhti Ishqi oo asiguna Akshay Kumar hogaamiyaha ka ahaa gabadha Amrita Arora waxaa la dhashatay ama isla dhasheen gabadha lagu magacaabo Malika Arora inkastoo san atrishad oo aflaamta sameysay aysan ahayn haddana waxa weeyaan atrishadaha sida dadban aflaamta kaga soo muuqdo waana atrishad dhanka daansiga ama heesaha kaga soo muuqatay dhanka Bollywoodka aflaamta heesaha kaga soo muuqata waxa kamid ah filimkii Dilsi ama heesta caanka ee Soomaalidu ay yaqaaneen Chenya gabadhii yani daansiga ku muujisa weeyaane aflaamta kale ee heesaha ay ka qaaday ama ay kaga soo muuqato waxa kamid ah filimka caanka Indian oo Sinidol hogaamiyaha ka ahaa sidoo kale filimkii Beju ee Soomaalidu dhahaan Baadir Dabaqarofka ay sidoo kale ka soo muuqato hees ka qaaday aflaam badan aan la tagi karin saaxiibayaal sheekadan qofka labaad ama atrishadaha walaalaha ee labaad ee taabanayso waa gabadha lagu magacaabo Karishma Kapoor sidoo kale Kareena Kapoor labadan atrishad Soomaalidu wada yaqaanaan waa atrishada Bollywoodka magac weyn ka sameeyay ama darajo fiican ka gaaray markaan eegno Karishma Kapoor waa wada naqaanaa oo idin sheegay ma aflaamta ay sameysay sidoo kale Kareena Kapoorna waa isla sidoo kale saaxiibayaal haddii aan ka gudubno sheekadaani qofka ama atrishadaha saddexaad ee taabanayso waa gabadha lagu magacaabo Shilpa Shetty iyo walaasheed gabadha lagu magacaabo Shamita Shetty iyo Shilpa Shetty waa laba gabdhood oo walaalaha laakiin markay imaado dhanka weynitaanka waxa weyn gabadha lagu magacaabo Shilpa Shetty Shamita Shetty waxay fanka India ku soo biirtay sanadii 2000 filimkeedii ugu horeeyay waa filimka Mohabbateen oo ay Soomaalidu aad ka wada yaqaanaan haddaba Shamita Shetty Shilpa Shetty waa walaalo dhanka kale sheekadaani kuwa atrishada ugu dambeeyay taabanaysa markay timaado haddana walaalaha ee Bollywood ka soo aflaamta Bollywood ka soo muuqdo waxa weeyaan Katrina Kaif iyo sidoo kale walaasheed Isabella Kaif waxay ka soo muuqatay aflaam aad u yar laakiin Soomaalidu ma yaqaanaan gabadhan aflaamta ay ka soo muuqatay waxa laga xusi karaa film uu kamid yahay Time to Dance and sidoo kale filimka caanka ah Dr. Kabi film lagu magacaabo aflaam kale ay ka soo muuqatay gabadhan Isabella Kaif waxay la dhalatay Katrina Kaif waana gabadha ka yar Katrina Kaif saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xogta yareed ee aan kaga hadlaynay qaar kamid ah gabdhaha Bollywoodka caanka ka ah ee markay timaado nolosha dhabta ah in walaalaha ah haddaba haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar haddii aad channelka cusub tahay subscribe inoo saar waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena